السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أركسن في اي بي channel. maanta waxaan tijaabineynaa air fryer oo sameeyo chickenka, baradhada iyo waxyaabaha kala duwan oo shiilitaanka loogu talagalay. Nuucani waa nuuc Power XL la dhahaa ee classic air fryer. baradhadu sameeyaa iyo chickenka, malayga, waxyaabaha in la dubo loogu talagalay without saliid la'aan oo wax saliida kuma dareysid. 70% fewer calorie. nacam calorie-kan wuu yareynayaa. heart healthy wuu yahay oo low fat waaye, wadnahan wuu u fiican yahay. easy to clean, si tartiibana waad u dhaqan kartaa oo si fudud sidii maxaa la dishwasherka ama gacantaadaba. waxyaabaha oo kariyana shirimbiga xataa way ka mid yihiin, keega gaar lagu samaystaa, malayga, cunooyinka kala duwan oo adiga u baahan in la shiilo ayaa loogu talagalay without saliid la'aan. darteed soo markii aan waxaan ugu talagalay maadaama aan ahay hooyo 3 caruur leh, ilmahana ay u baahan yihiin waxyaabaha la shiilo nacam saliida lagu shiilan ka ilaalinay. buuggaas wataa oo wax walba oo aad ku karinaysid inta saacadood iyo kuleelka inta aad ka dhigi kartid ayuu ku tusayaa. waxaa i caawinayo wiilkayga iyo gabadhayda oo ila diyaarinayaan insha Allah. la socda maanta waxaan ku karinaynaa only 5 xabo oo kuna waa tijaabinaynaa. finally waa furfurnay. maxaa la dhahaa mashiinkii hadda waa diyaarsan yahay. bicihii bisaa noo haray inaan ka saarno. gabadhayda istikara gacanta uga dhigan. waxaa la yiraahdaa haddii iskuulka imaadeen, markay iskuulka imaadaan inay sokor iyo chocolate wax ku bilaabaan diidaa. marka waxyaabaha proteinka laha siiya hilib duban, chickenkan ama fruit iyo waxaas. marka waxaan ku darayaa xabad ukuna, liin dhanaan, fish fryer kaas iyo liin iyo pepper. halkaana ka fiirsanaa saacada iyo kuleelka loogu talagalay. waa just 5 xabo oo dooro ayaan ka wadaa. gabadhayda gacanta soo dhaqanaysa ayadaa rabaa inay sameyso ee isku qasqasto. markaas ilmaha markay yaryar yihiin waxaa fiican in jikada la baro nacam inay safe u ahayn iyo inay safe u tahay. soo marka way la qabsan doontaa. kaasna waxa waaye nan stickerkii waaye oo badhar ka samaysan. soo marka hadda waxay ku shubaysaa liintii iyo filfishi oo budada ahayd oo qalalan. aniga wax badan kuma daro, waa easy. liin dhanaan fresh maxaa la dhahaa jabkaas liin dhanaankan oo ku darayaa because liin dhanaanta game changer waa wax dhan way bedelaysaa dhadhankii. ukunti way jabin weyse, labadeena isla jabineen. marka waxa meesha ku turtuure xabada ukuna. kadibna waxaan ku dareynaa sheeg fish fryer kaas. waa galey duban, galeydii budada ahayd oo loogu talagalay inay adkayso ama ay ka dhigto crispy wax oo qarjac qaarka kore
ama chickenka qaybtiisa kore fishka loogu talagalay waliba fishka kala daato oo loogu talagalay bahashan laakiin anaga wax walba oo isticmaalaa isna big deal galeyda kale ma jecli tan xoogaa dhadhan way leedahay cusbana way leedahay xoogaa xawaashna ku jira kalar yellow ahna way leedahay xoogaa wixii ku maridabo xoogaa yar isbedelaya dhadhankeeda aad u macaan ila taraay gareeya kadibna marka intaas ku qaso bur ayaa marmarinaya oo crispy ka sii dhigayo ugu wixii u baahneed in marinade lagu sameeyo oo cabaar la dhigo laakiin ma dhigi karo ilmaha hadda iskuulka imaaday waxbay u baahan yihiin mashiinkan marka howl fududeys aan ugu sameynaya chickenkooda maxaa la yiraahdaa fruitkoodii caanahooda mis intaas intii homoogada sameysanayaan way ku filantaa cashadooda way sugan karaan because marka iskuulka ka imaadaan aniga bariis iyo pasta midna ma siiyo maadaama ay horta 3 gaareenba 9 saac galabnimo uma baahnaba laakiin day wax yar oo chicken ay helaan iyo cabitaankooda iyo fruit marka caawa casho le u diyaar garoobi karaan gacmihii yar yar la dhaqooyaa marka waa diyaarina waa kaasa baashiyan soo qaadana waa dhaqna waa qalajina biyaha marsiye hadda waxaan ku buufinayaa nan stickerki oo badhar ka sameysan badhar oo soo carfa waxaan ku jeclahay waxa lagu sameeyaa oo kaleeto pancake laakiin aniga hadda maxaa la dhahaa meeshan inay iiga dhigto ayaan diidayaa oo chickenkaaga ma ku dhageysa marka meeshaas saartay because bir waay ma ogido chickenka xabad u soo saareysaa howl badan ma kaaga baahno halkaas saare ilmahaaga taamsiine waxa dhib markii aad wax karinaysid ilmihina ay guriga ku joogaan adiga dhan waa isku buuqay waa wareereysaa daas waay mashiinada korontada ay ii caawiyaan mid kale cuntada aan ku karino uu ii yaalaa oo maxaa la dhahaa ii sheeg pressure cooker ah kana waa fryerkii hopefully inaanan wax kale u baahnayn waan gelinayaa hadda markaas u geliyo timekii iyo waxa fiirsanaysaa iyo ujeeda waa wareejine lugta chickenka u soo laabanay meesha empty ku qoran taariikh dhag waa kaasa lug chicken ku soo baxday 360 saacada uu ku karinayna waxa waaye 20 minutes marka arrin kale aan ogaaday mashiinkan maadaama uu 20 yahay 360 waa dab adag gabadheeda toasterkan hooy aan duubanay toaster aan soo gadanay warka kirootiga lagu dubanayo waaye ayada marka xitaa kana video aan ka duubanaya gabareer waa shaqada inay barato waaye wiilkayga sidoo kaleeto dadka gabdhaha kale ku shaqeeyaan laakiin aniga wiilasha taa meeshaas midiya saaran mar dambe ka qaadi doonaa wiilasha taa waa la baraa wiilkaaga inuu hadhow gabar ku tiirsanaado ama maxaa la yiraahdaa single markuu noqdo xaafadaha gabdhaha cunta ii soo karidhaa ma fiicno wiilkaagana wax bar gabadhaadana wax bar especially wiilka doo biri guursada xitaa wuxuu u baahan yahay familkiisa xaaskiisa haday ka xanuunsato xaafadaha in loo baryo ma ahan reer hebela maamada ka xanuunsan tahay ceeb waay aabaha inuu wax uga soo tuuri karo anaga aabaheen asagoo dhar ciidan wato jikada noo gali jira 1 minute ayaa ka hartay so waa diyaar la sii marka wax noo dhiman asaga markuu uu isxiro uu qaylinayaa uuna damayaa dabeeshii dhan iyo naqaskii iyo qiiqi bixilahay uu ku celinayaa bahalkan waxba ma orayo gurigaaga nadiif already wuu qayliye in laga soo bixiyo diyaar u yahay so marka la sii asaga ay soo qaylinayo waxa uu istaagay then the moment of truth ma la dhaarun iyo ilka waa la cadeeyaa hadda la arkaa marka wuxuu ka soo saar meesha chickenka yaa la arkeena waa inaba caadi ma ahan chicken aada saliid ku dubanin oo maxaa la dhahaa dhib badan aadan u marin oo arkayda babyda yaroo 7 jirka waxay walwalaaqda waaye waa kaasa kan maxaa waaye chickenka laftirkiisa ayuu baroortiisu intuu ka shiilay
waxaa arkaysaa saliid meesha kusoo hareyso xitaa. Chickenka maqaarka kore baruur waaye, ma ogido baruuraa ka laalaaday mar xitaa. marka waa kaasaa chicken banaanka uguma soo gadaysid. Alaab yaroo crispy ah oo macaan oo gudahana soft ka ah oo dhiig iyo dheecaana aan kaa dhalaynin. Saliidda uu chickenka ka miira fiiriyaa because aan spray leh ku shubay arag waxaasoo saliiduhu ka miira waa run 70% fewer calorie marka lagu dhahayo waa kaasaa uu ka bixiyay wixii saliidaha crispy oo ka dhigay maqaarka dhan qaleel oo ka dhigay wax saliida ma lahan. Kaasaa hadda fiirineynaa bal inuu lafta gudaheeda la fiiriyaa bal inay dhexda dhiig iyo dheecaan ku leedahay fiirina. That is so white. aad u caddahay ujeedada oo nadiif waa lafta waa ujeediin. Anaa test garanayo sorry. waa mahadsantihiin waa kaasaa ila soo tijaabiyay mashiinkan.